kulanti haboon daawade beesha caalamka waxay si xoog ah rabtaa inay isugu keento madaxda Soomaalida ah ee ulaha booc isugu tukubaya isla markaana isu jaakiraya dhamaantood toddobaadkan waxa baaqday safar ay Muqdisho ku imaan lahaayeen Saciid Cabdullaahi Dani oo Puntland madaxweyne ka iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo waarankiisii soo qabasho laga laabtay laakiin wali aan la aqoonsan dawladdu waxay war ka soo saartay gogosha madaxweyne Xasan Sheekh ee golaha mustaqbalka wali taag baaja laakiin James Iswan wuxuu xalana ugu yeeray madaxweyne Xashi Maxamuud iyo madaxweyne hore Sheekh Shariif wuxuuna labadoodu ka dalbaday maadaama 98 maalmood ay u harsan tahay dawladda in laga wada shaqeeyo doorasho heshiis lagu yahay haddii kala faragelintii beesha caalamka imaanaysa ogowna beesha caalamka waa awoodda kama dambaysta ee la isla taga sanadka ugu dambeeyay dawlad kasta waxaad ogeydeen dawladii Xashi Maxamuud teeramkii hore 2017 cadaadiska beesha caalamka ay sameysay waxaad ogtihiin dawladii madaxweyne Farmaajo 2022 beesha caalamka galaangalkeedii 2026 mar kale waxaan u joognaa beesha caalamka ee fadhigeedu yahay xalane aaga ka caagan shacabka in ay mar kale isu qoor qabanayso madaxdan dhamaantood isu jaakirayso ee iyagu isdiidan haddaba James Iswan muxuu ku soo canaantay Xasan Sheekh iyo sidoo kale Sheekh Shariif kulanka ka dhacay xalane muxuu daarnaa waxa kale oo eegaynaa xog rasmiya Soomaaliya iyo Ruushka waxay kala saxiixanayaan heshiis cusub oo muhiim ah xilligan maxay yihiin danaha ka dhaxeeya Ruushka iyo sidoo kale Soomaaliya iyadoo loo gahay Soomaaliya taageerada ugu badan sanadii ugu dambeysay inay ka helayso Turkiga wararkaas oo dhan ayaan falaqeynaynaa saaxiib soo dhow haddii aad nagu cusub tahay channel ku soo bir oo subscribe soo dhig saaxiibada u sii share gareeyo mahadsantahay mawduuceena waxaan ku bilaabaynaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed maqribnimadii caawa ay soo saartay waxay kaga hadashay dib u dhac ku yimi wada hadaladii la filayay inay yeeshaan villa Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka oo looga hadlayo xaaladda cakiran gaar ahaan wax ka bedelka dastuurka iyo doorashooyinka oo ah ubucdiga khilaafka xilligan u dhaxeeya madaxda Soomaalida ah ugu horeyn dawladda Soomaaliya ayaa ku celisay in wali ay markaasi fidsan tahay gogosha uu dhigay madaxweyne Xasan Maxamuud isla markaana ay adkeynayso inuu qabsoomo shirkaas muhiimaduna tahay ilaalinta midnimada dalka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka duuleysa mas'uuliyadda qaran ee ka saaran ilaalinta midnimada dalka wadajirka bulshada Soomaaliyeed iyo xoojinta hanaanka wada tashi ee ku dhisan ama hanaanka wada tashiga ku dhisan waxay mar kale adkeynaysaa baa la yiri in gogosha wada hadallada u dhaxeeya dawladda federaalka iyo golaha mustaqbalka ay wali fidsan tahay sidaas waxa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa kale oo dawladdu ay sheegtay in wax laga xumaado ay ku tilmaantay koordakii lagu sameeyay ciidankii ay ka soo hormariyeen madaxda Jubbaland iyo Puntland oo shirkan Muqdisho ka dhacay in ka qayb galeen sababtuna waxay ku sheegtay in wufuudi imaan lahayd caasimadda ay dib u dhaceen waa nasiib darro weyn dhacdadii 1 February 2026 iyo dib u dhaci ku yimi qaar ka mid ah wufuudi golaha mustaqbalka ayaa mar kale lagu yiri bayaanka ka soo baxay dawladda federaalka dhanka kale dawladdu waxay sheegtay inay diyaar u tahay in khilaafka taagan lagu xalliyo wada hadal iyo sidoo kale is-afgarad iyadoo la tixgelinayo xaaladaha adag ee ka taagan dalka sida abaaraha iyo dagaalada ka dhanka ah shabaab waa marmarsiyo cad oo dawladdu ay muujinaysaa leeyahay dadkii iyadu ay cilisay ayay inay ka xuntahay sheegaysaa maxay tahay sababta uu cilisay baa leeyahay su'aal la iska weydiinaya waxa kale oo dawladdu rajo wanaagsan ka muujisay shirkii markaas in shirkan uu yahay mid guuleysan karo lagana miro dhalin karo waxyaabaha laga wada hadlayo iyadoo dawladdu rajo wanaagsan ka muujisay laakiin doorkii beesha lixaad taagan beesha caalamka si gaara ergeyga qaramada midowga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan waxa uu yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay maalinimadii shalay isagoo oo ka dalbaday in wixii ka dambeeyay 5 February haddii kulamada sida ay yihiin ay u dhici waayaan beesha caalamka ay markaasi tallaabo adag qaadayso madaxda Soomaalida ahna si khasab isugu keenayso ogowna beesha caalamka wax dhib kuma laha raggan isdiidaya inay isu keen waxaad ogeydeen 2021 Saciid Dani oo ahaa nin baarqaba oo ismahadiyay madaxda dawladda awaamiirteeda diiday Farmaajo telefoonka ku dhageystay ka qaban waay wax badan lagu celceliyay in amar ka soo baxay qaramada midoobay oo Muqdisho ku yimid isla markii isagoo aan la barin madaxweynihiisa qaranka uu yeesay laakiin ma awoodin in uu yeeso ama uu markaas iska diido warka uga yimi beesha caalamka marka waxa leeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliya markana waxay diyaar u tahay in amaanada beesha caalamka waxay diyaar u tahay in ay dalaabo qaado kana qaado markaasi madaxdan Soomaalida ah ee wada hadalka diidan James Iswan wuxuu ka dalbaday in ay markaasi Muqdisho yimaadaan dhammaan madaxda Soomaalida ah sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo weheliyo taliyaha
militariga Soomaaliya Odawa ayaa maanta kulan la yeeshay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Francisco Madero ninka la yiraahdo kulankan waxaa diiradda lagu saaray taageerada caafimaadka farsamada iyo agabka midowga Yurub ee ciidamada xoogga dalka iyadoo oo sidoo kale lagu soo bandhigay wareejinta agab muhiim ah Odawa oo xilka laga qaaday dabayaaqadii bishii dhaaftay January ayaa wali haysta taliska militariga isaga shaqeynaya xilkiina ma wareejin waxaan leeyahay maxay tahay sababta uu xilka wareejin la yahay si kastaba ha ahaato daawadayaal waxa kale oo raba inaan kula wadaago heshiis markaasi ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Russia iyo Soomaaliya ayaa heshiis kala saxiixay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Ali Xaaji Aadan wasiir ku-xigeenka caafimaadka dawladda Russia ayaa waxa ay magaalada Geneva ku kala saxiixdeen markaasi heshiis afgarad oo MOU ah oo lagu xoojinayo iskaashiga caafimaadka ee labada dal heshiiskan ayaa loo arkaa mid muhiim isla markaana labada dal wax weyn ku soo kordhin karo waxaan rabaa inaan kula wadaago muuqaalkan ila daawo like star saaxiibadana la sii wadaag mudane gudoomiye marka hore ilaahay baa mahad leh subhanahu wa ta'ala oo sidii aynu arki jirnay inuu naqiinayna halkan ka dhigay markii hore maantana sideen u ekeysii ilaahaas mahad leh markii halkan laamiga la taagan yahay oo aan hadda hortayda eego 10 sano ka hor waxa laga yaabaa inaan filaynin inay dhismayaasha sidan u qurux badan iyo magaaladani inay sidan u ekaato ama xaafadani ay sidan u ekaato in badan oo anigu ka mid ahay waxa laga yaabaa inaysan aad u filayn laakiin isbedel weyn ayaa yimid isbedelkana waxa keenay ilaahay baa keenay tuma dadka xaafadan iyo guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa keenay waanu mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka oo runtii aad iyo aad committed ugu ah inay magaalada isbedesho gaar ahaan infrastructureska iyo kaabayaasheedu inay isbedelaan mudane gudoomiye akhyaarta sharafta leh jid la dhisay in badan baa la dhisay jidad meelo badan laakiin micna gaar ah waxa siinaya runtii jidadkan marbay ka dambaysa maalinta ka dambaysa ayay jidad kala dhisay ka sii fiican yihiin kuwii kale marka waa horumarka oo runtii si isdaba socod ah ayuu asagii horumarka u sii horumaraya marka aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa adiga iyo tiimkaagaba sida wanaagsan ee muddo kooban aad laamigan quruxda badan aad u dhisteen aad baad ugu mahadsantihiin dadka dhistay shacabka dhistay ee canshuurta bixiyay ee ku garab taagnaa ee jidkani ka xirnaa ee u samray ee halkan soo gaarsiiyeyna ayaguna way mahadsan yihiin waana u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan shacabka caasimadda iyo ummadda Soomaaliyeedba oo jidkan sidan loo qurxiyay laamigan ayaga loo dhisay laamiga in la dhiso waxa ku mataanaysan dhaqaalaha oo kor u kacaya markii laamiga la dhiso xaafadaas laga dhisay dhaqaaluhu kor buu u kacaya maxaa jira isu socodka fududaanaya markastoo isu socodku fududaadana waa suuqii oo xoogaystay markastoo suuqu soo xoogaysto oo tirada dadku ay bataanna markastoo oo businesska ama ganacsiga markaa socdaay uu kor u kaco waay marka dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa kor u kacaya bilicda iyo quruxda magaalada iyo hygiene-keeda ayaa iyadana ayaa ku lamaansan oo way qurux badnaatay waa kan hadda quruxdeeda caasimadaha dunida ayay la tartamaysaa marka qurux bay leedahay amniga ayay wax ka taraysaa oo hadda qajafyo iyo waxyaabo falfool xun iyo bacal la dhigdhigay iyo wax lagu soo dhuuman karaa ma yaalaan waa meeshaas quruxda badan ee wanaagsan waaye runtii marka jidka la dhiso markii laami la dhiso laamiga la dhisay kaliya ma ahee qaybihii nolosha oo dhan ayaa la dhisay gabadha umusha ama uurka leh ee foosha ah ee laga soo qaadi jiray meel jidkan soo qaadi jirtay waxaa laga yaabaa inay culays ku qabtay ama fogaanta ha noqoto oo hadda baabuurku intuu la soo jagjaglaynayo ama ha noqotaba in dhagxaan ay ku xidhnaayeen ama jidad ku xidhnaayeen laakiin maanta waa kan sidan aan loo sameeyey
si degdega ayaa qofku meel kasta ugu gaari karaa caasimadda wax fara badan ayaa laga soo sameeyey waad ogtihiin oo waxaa la nidaamiyey bajaajyadii iyo dhibkii jiray iyo dilkii iyo mashaakilkii amnigii baa micno laga qabtay waad ogtihiin oo caasimaddu ay amni tahay markhaati baad ka tihiin idinkaa doorasho ku galay safaf dhaadheer ku galay ayada oo aan waxar laga dhiijinna alxamdulilaahi waa tii inoo dhammaatay ilaahay baa ku mahadsan magaalada marka sidaa u eg ee sidaa u xasiloon ee sidaa u horumaraysa ee amnigeeda sidaa u horumaray waxaan kula dardaarmayaa shacabkeenna qiimaha badan ee reer banaadir inay nabadgelyadooda ilaashadaan bilicdooda ilaashadaan quruxdooda ilaashadaan inaan la khaldin inaan magaaladan la suuro xumaynin inaan magaceedii qiimaha badnaa ee soo noqday ee la soo celiyey inaan dib loogu celinin magacxumadii iyo foolxumadii iyo dhibka ay soo martay inaan dib loogu celin dadka qaarkood macnaha waxay u baahan yihiin inay soo booqdaan oo ay yimaadaan oo ay arkaan waxaa laga yaabaa in maansadkooda uu horay ugu jiro waxyaabihii ay maqli jireen ama ay arki jireen laakiin waxaan rabaa inaan u sheego muqdishadii aad taqiineen ma aha muqdisho way soo noqotay caasimadaha ugu amniga badan ay ku jirtaa caasimadaha ugu korista badan ayay ku jirtaa marka la fiiriyo siday u korayso muqdisho way isbeddeshay waxaan rabnaa marka sidaas ay isu beddeshay inay ku sii socoto mana istaagayso insha allah way ku sii socon doontaa mashaariic waaweynaa ka hirgeli doontaa haddii ilaahay yidhaahdo wayna sii fidaysaa wayna sii qurux badnaan doontaa mar kale waxaan rabaa inaan dhammaantiin idin hambalyayo qorrax baad taagantihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin hambalyo ayaan idin leeyahay waxa laynaga filayaay waa inaan ilaashanno hantideenna guud oo ay laamiyadu ugu horreeyaan hanti guud weeye lacagteennii baa gashay innagaa isku leh waan wada leenahay waa xaqeennii waa xaqiinnii waxaa loo baahan yahay marka in aynu baranno haddaan ummadda soomaaliyeed nahay waxaan isku leenahay ee dowladnimada ah ee hay-adaha ah ee dhismaha ah ee dalkeenna ah inaynu wada ilaashanno oo dhammaanteen aynu xil iska saarno haddii bac lagu tuuro qofka bacda ku tuuray u sheeg waxaa dhahdaa ha ku tuurin meesha ka qabo waana alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar ayay weeye oo sidaasay dadka muslimiinta ahy waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar marka dadka muslimiinta waxaa loo yaqaanaa qofka hadduu dhexdooda wax ku sameeyo inay gacanta ka qabtaan marka inaynu iska qabanno intayna xumaynaysa waabana iska qabannay ayaynu halkaa nabad ku hellay marka isbeddelkan aad aragtaan ee yimid ee nabadda ku yimid dadka isbeddelay quluubtooda isbeddeshay ilaahayna ma beddeloba ummadda ilaa ay ayagu iska soo beddelaan marka dadkeenna hadda gaar ahaan reer muqdisho ayaa fakarkoodii fiicnaaday isbeddel baa ku yimid dowladnimadii bay jeclaadeen amnigii bay jeclaadeen noloshii bay jeclaadeen yacni waxaa waaye sidaasay ku timid isbeddelku sidaasuu ku yimid haddayna ayaga ka imaanin isbeddelku ma imaadeen marka waynu sii wadaynaa halkaasaynu kaga taagnaanaynaa guddoomiye magaaladeennu waxay u baahan tahay dhirayn in la raaciyo dhismaha marka la dhisaayo in loogu talagalo in laamiga in la dhireeyo magaalada in la dhireeyo in loogu tagalaan u baahannahay marka magaalada hadda laamiga waa qurux badan yahay laakiin waxaan u baahannahay xaggee loogu talagalay inay geedihii ka baxaan xaggee loogu talagalay inay dhirtii ka baxdo waxaan u baahannahay inay dhirayntii inay ka muuqato magaaladaan u baahannahay marka yaan intaa yartaa laga halmaamin magaaladan dhirayn bay u baahan tahay aan dhirayno aan qurxinno aad iyo aad baad u mahadsan